برصابك gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Shiine oo weheliyaan kusmaha maayarka magaalada Gabiley ee xogeeya fulinta dawladda oo degmada Gabiley iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka iyo waliba mas'uuliyiinta degmada Arabsiya ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay dhismo cusub oo kaabaana lagu korin doono dhismayaasha degmadaasi Arabsiyo برصابك gobolka Gabiley oo goreyn halkaasi hadal kooban ka jeediyay ayaa waxa uu tilmaamay ahmiyadda uu dhismahan u leeyahay shacbiga deegaanka Arabsiyo waa markii imika saddexaadan xool ugu soo noqdo markii ugu horeysay waxaan ku yimi kormeer 4 maalmood kadib markii aan xilka la wareegay kormeerkaas oo daaraa inaan soo arko baahiyaha ka jira dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Gabiley kolkii aan joogay xarun dawladda hoose Arabsiyo degmada Arabsiyo dhammaan dadkii hadlay waxay ka wada hadleen kawaanka ka wada hadleen qaasatan dumarkii goobta joogay waxay aad ugu nuucnuucsadeen kawaanka dabeedna waxaan sidii soo eeg bal kawaankan aadka looga cabanayo ay maaragtay sheegayaan dumarka iyo dhammaan dadka meesha ka hadlay ee mas'uuliyiintu ku jiraan duqo ku jiro dabeedna waxaan u imi runtii meelan wiilgii arag waan filayn inay ka jirto Soomaaliland sidoo kale iyaguna waxa halkaasi hadal kooban ka jeediyay xogeeya fulinta dawladda oo degmada Gabiley taliyaha qaybta booliiska degmada Gabiley iyo waliba xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka iyo maamulka Arabsiyo oo dhibaatooyin ka soo dhaweeyay dhismahan maanta kaabaanka laga dhagax dhigay مسؤولينta xisbiga kulmiye ee magaalada Arabsiyo gaar ahaan ururka dhalinyarada ee xisbiga kulmiye ee degmadaasi Arabsiyo ayaa maanta munaasabad ballaaran oo ay ku taageerayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku qabtay magaalada Arabsiyo ee gobolka Gabiley ka tirsan halkaas oo goreynba ka hadlayeen mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee dhinaca dhalinyarta ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته anigoo ah gudoomiyaha dhalinyarada ee magaalada Arabsiyo Sportiga waxaan halkan taageero buuxda aniga bahdayda Sportiga ku muujinaynaa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ee waxqabadka dawladda waxqabadka iyo horumarka leh waxaan ku taageersanahay taageero buuxda ayaan ku taageersanahay waxaan hal wixii nabadgelyada khalkhal gelinayna anagu waan ka soo horjeednaa nabadgelyada wax korkortan la gali karaa aba yaraatee ma jirto marka labaad waxaan hambalyo u dirayaa shacabka Soomaaliland munaasabadii maalinta dawladda 18 May ee sida wanaagsan ee gobonimada looga dabaaldegay dalka iyo dibadiisa marka xigta dhalinyaradu waxay soo gudbid waa aayahooda iyagoon cid u danaynayn dan shakhsina aanu socon waxay u socdaa danta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mas'uuliyiinta ururka dhalinyarta oo kale muddo horeba مسؤولينta xisbiga kulmiye ee dhinaca dhalinyarta ayaa si ballaaran taageeray qadiyada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan uu taageeraya waxqabadkii 5 sano oo ka qabtay guud ahaanba Soomaaliland waa Nimcaan Deeg Ibraahim TV-ga qaranka Gabiley.